Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada aqoonkeena academy waxaynu socday koorskeennii ahaa Microsoft Word waxaynu soo qaadanay casharkii koowaad ayaynu soo qaadanay oo ahaa sharaxaadda Microsoft Wordka casharkaana waxaynu ku qaadanaynaa samaynta dukumenti cusub ayaynu ku qaadanaynaa sida dukumenti cusub loo sameeyo loo asaaso meelaha la tagayo iyo sida new loo dhaho kabacdina loo isticmaalo marka aynu u guda galno casharka markaad soo kicinayso Microsoft Wordka dhowr qaabood ayaa la maraa marka koowaad aad soo kicinayso dhowr qaab ayaa la maraa qaabka koowaad waxa weeye waxaad tegaysaa meeshii aad ku save garaysan lahayd Wordkaaga meesha ku save garayn lahayd folderkii ama hadduu desktopki yahay ama hadduu driveka yahay ama hadduu yahay folder gudihiis yahay kabacdina waxaad tegaysaa right click baad taabanaysaa mouse-kaaga kabacdina waxaad tegaysaa new kadibna waxaad dooranaysaa barnaamijka oo ah Microsoft Word document saas ayuu kugu asaasmay marka koowaad ama waxaad ka tegaysaa Windows ku dhufanaysaa kabacdina waxaad dooranaysaa ama raadinaysaa folderka Microsoft Office ay ku qoran tahay xaggaasaa kasoo kicinaysaa amaba waxaad ka tegaysaa search ayaa dhahaysaa waxaad dhahaysaa Word search marka tiraahdo okay baad dhahaysaa saasna kugu kusoo kicin kartaa markaad saan kusoo kiciso oo aad marka hore right click aad kusoo kicin wuxuu hadhow kaa rabaa inaad save garayso oo aad location ku save garayso uu kaa rabaa marka waxaynu ku dhahaynaa marka koowaad right click new kabacdina waxaan dhahaynaa Microsoft Word markuu saa inagu soo baxo qaabka lambarka magaca aynu ka bedelayna waxaan dhahaynaa right click baan dhahaynaa right click markaad tiraahdo waxaad dhahaysaa rename meesha rename ku qoranta kabacdina magaca ayaa u bixinaysaa tusaale ahaan waxaanu bixinaynaa inagu MS Word oo ah MS Microsoft Word waana isaga yahay kabacdina waynu ku dhufanaynaa laba jeer ayaa click siinaysaa wuu soo baxayaa kahor saan kugu soo baxo documentiga cusub marka saana loo soo kiciyaa haddii documentiga saan isagoo kugu kacsan ama saan usoo kicsan aad rabtid inaad mid cusub bilowdo laba qaab baa loo sameeyaa isaga inaad tiraahdo shortcutka control n haddaad taabato kuu furayaa documenti cusub ayuu kuu furayaa oo kii hore aan ahayn oo mid labaad ah ayuu kuu furaysaa ujeedid laba documenti ayaa inoo furan hadeer haddii kalena waxaad tegaysaa waxaad dhahaysaa file baad dhahaysaa kabacdina waxaad dhahaysaa new markaad tiraahdo waxaad ka dooranaysaa templateskan qaabkaa rabto nashqadaa rabto haddaa nashqad u baahan tahay ayaa templateska ka dooranaysaa diyaarka ah oo Microsoft Wordka marka hore lagu soo diyaariyey oo presetska ah kabacdina amaba waxaad dooranaysaa mid banaan haddaa rabto inaad documenti banaan adigu aad bilaabato mid banaan baad dooranaysaa wax kuu furmaya documenti ayaa kuu furmaya oo banaan ah ayaa kuu furmaya